asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waa markii labaad oo hawada ku kulmayno waana khamiis 4 bisha December ee 12aad sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago gudoomiyaha gobolka Minnesota oo shir jaraa'id qabtay isla markaana ka jawaabay caydii gobolka Minnesota iyo dadka Soomaalida uu u geystay madaxweyne Trump arrintaasi muxuu ka yiri gudoomiyaha gobolka Minnesota iyo howlgallada waliba ciidamada ICE ay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo waliba Minneapolis waxa uu sidoo kale ka jawaabay hadalkii wasiirka amniga gudaha oo ahaa dadka Soomaalida ah viisayaasha ay ku joogaan gobolka Minnesota 50% inay yihiin kuwa waxba kama jiraan oo been abuur ah arrintaasina uu ka jawaabay gudoomiyaha gobolka Minnesota maayarka magaalada Minneapolis oo isaguna maanta shir jaraa'id ay si wada jir u qabteen culamaa diinka iyo community ama bulshada Soomaalida iyo imaamyada masaajida ayaa waxa uu sheegay in ay sharci darro tahay iyo mas'uuliyad darro bartilmaameedka uu si gaar ah u bartilmaameedsanayo dadka Soomaalida ah madaxweyne Trump sidoo kalena waxda dawladda Mareykanka u qaabilsan jinsiyadaha iyo waliba socdaalka ee USCIS-ta oo maanta qoraal ay soo saartay ku sheegtay hadda kadib kaarka shaqada inuu noqon doono 1 sano iyo bar ama 18 bilood halka markii hore 5 sano uu ka ahaan jiray yaa waayo dadka ay saameynaysan waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo shir jaraa'id maanta qabtay isla markaana uga hadlayay miisaaniyadda gobolka Minnesota ayaa waxa uu ka jawaabay caydii madaxweyne Trump uu u geystay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo waliba gobolkaasi waxa shirkiisa jaraa'idba uu ku bilaabay wuxuu yiri intaanan wax kale u guda galin waxaan doonayaa bal inaan ka hadlo caydii iyo aflagaadadii iyo midabta koorkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u geystay dariskeena Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota waxa uu yiri in madaxweyne Trump uu qashin ku tilmaamo bulshada Soomaaliyeed waxa uu yiri waa wax aan horey looga baran madaxweyne Mareykanka waxa uu yiri caruur yar yar oo iskuul aadayso ayaa madaxweynuhu waxa uu ku tilmaamay in ay qashin yihiin waxana uu sheegay in qofku hadii uu dambi galo asaga arimihii musuqmaasuqa ayuu ka hadlayay marka waxa uu yiri qofku hadii uu dambi galo xabsi ayuu aadaya ma lagu saleynayo qofka diintiisa asal ahaan meesha uu ka yimid iyo waliba midabkiisa sida darteed waxa uu yiri dadka Soomaalida ah gobolka Minnesota waxa ay ku soo kordhiyeen dhaqaale aad u fara badan isla markaana waxa uu yiri waxyaabaha madaxweynuhu uu ka sheegayo community-ga ama bulshada Soomaalida ma ahayn wax aan doonayna xilligan inaan aragno waxa uu yiri way wanaagsan tahay in la kala saaro dambiga iyo waxyaabaha kale laakiin waxa uu yiri qofku ha cadaado ha madoobaado hadii uu dambi galo xabsi ayuu aadaya waxa uu sidoo kale ugu baaqay mas'uuliyiinta la soo doortay ee Republican-ka ee gobolka Minnesota wuxuu yiri arrintan hadii aadan cambaareynin macnaheedu waxay u dhigantaa in aad raali ka tihiin waxa dhacaya waxana uu sheegay sidoo kale in bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota ku nool ay tahay mid la xushmeeyo oo la qadariyo la qiimeeyo waana ku faanayna ayuu yiri gobolkeena inuu ka mid yahay mid ka mid ah gobolada ugu wanaagsan ee Mareykanka laakiin waxa uu yiri waxa kaliya oo dhibaato ku ah gobolkeena oo dhaawacayo waa madaxweyne Trump isagoo arrimahaasi ka hadlayay Tim Walz waxa uu yiri Though I want to start off and address the vile racist lies and slander towards our fellow Minnesotans. Donald Trump's calling our Somali neighbors garbage and the state of Minnesota a hellhole is, I'm assuming, is unprecedented for a United States president. We've got little children going to school today who their president called them garbage. This shouldn't be that difficult. Of trying to conflate. Look, we see it here. If you commit crimes, you go to jail. Doesn't matter what your race is, what your ethnicity, religion. But demonizing the entire group of people by their race and their ethnicity, a very group of people who contribute to the vitality, economic, cultural of this state, is something I was hoping we'd never have to see. This is on top of all of the other vile comments. So let's be very clear. This should be easy to differentiate. You should very easily be able to say, we need to continue to work together. If there's crime, whether it's white, black, who cares? But to be able to condemn this. So I would just be very clear on this. Anyone in this state, especially elected officials, who are unable to condemn this vile attack on our neighbors in our state, you are complicit in it. And it will not stand in Minnesota. So I tell our Somali neighbors, I tell our Hmong neighbors, I tell all of our neighbors in Minnesota, you're respected. You're valued. We're proud of this state that ranks near the top in almost every single category. And I will tell you, the only thing that's hurting this state
as he so falsely claimed to a group of people, is Donald Trump himself. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz waxa uu sidoo kale ka jawaabay hadalkii talaadadii markii Trump uu golaha wasiirada la kulmayay ka soo yeeray wasiirka amniga gudaha Kristi Noem oo tiri markii baaritaan aan ku sameynay waxa ogaanay dadka Soomaalida ku sugan gobolka Minnesota oo viisayaasha ku yimid 50% inay viisayaashaasi shis sharci darro ah ay ku yimaadeen marka waxa uu yiri waxaan maqlayay wasiirka amniga gudaha oo dhahaysa tira ay sameeyso oo 50% dadka viisayaasha ku yimid inay yihiin sharci darro marka wuxuu yiri waxay ahayd maadaama wasiirka amniga gudaha inay ogaato qaladkana aniga ay dusha iga saartay ayuu yiri marka waxay ahayd wasiirka amniga gudaha inay ogaato in viisayaasha uusan gobolku soo saarin dawladda federaalka ay dadka viisayaasha ay siiso marka wuxuu yiri arintaasi ayaa ka maqan anigu dad fiisayaal ma siiyo immigrationku sida ognahay waa federaal marka gobol shaqo kuma lahan immigrationka hadii visa la bixinayo hadii passport la soo saarayo hadii green card la soo saarayo hadii kaar shaqo la soo saarayo dhamaanteedba dawladda federaalka ayaa ku shaqo leh marka waxa uu yiri inay intaasi ogaato ay ahayd waxaynu sidoo kale uu yiri Trump isagoo mar kale ka hadlayay Trump waxyaabaha ugu lagu duubanaya arrimahan oo dadkan Soomaalida u caynaya iyo gobolka Minnesota waxay macnaheedu tahay uu yiri shaqadiisii ayuu ku guuldareystay oo ah in sicirka raashinka uu hoos u dhigo isla markaana shaqadiisa uu ka soo baxo marka sababtaasi darteed ayaa waxay tahay waxyaabahan been abuurka ah inuu dadka Soomaalida u caynayo sababtuna waxay tahay wuxuu ku guuldareystay dhinac kasta ayuu yiri sidaas darteed anagu mar kastaba waxaan ka fikri doonaa gobolkeena Minnesota iyo dadkeena Minnesota isagoo arrimahaasi ka hadlaya gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walzna mar kale waxa uu yiri You heard the DHS secretary yesterday is complaining with a made-up number that 50% of our Somali neighbors are here on fraudulent visas, and that's my fault. You would think if you're the Secretary of Homeland Security that you would know the state has nothing to do with the issues of visa, that it's the federal government. So I will gladly comply with what they need. I would fully expect them not to do what Americans are asking them to do, reduce costs, do your job that you need to do in getting us a budget, invest in research, but that's not what we're getting out of them. This is just more distract. This is what you do. This is what President Trump, the reason President Trump is throwing racial slurs out, the reason he's throwing horrific slurs at me on Thanksgiving Eve or to Ilhan Omar is because he's failing on every front. It's because it's collapsing around him. And so we'll do our best to keep looking out for Minnesota. dhinaca kale maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa waxa uu kulan la yeeshay community-ga Soomaalida ama bulshada Soomaalida oo culimo diinka imaamyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shir jaraa'id ay qabteen howlgaladan ciidamada ICE ay ka wadaan Minneapolis iyo St. Paul magaalooyinka mataanaha waa ay cambaarayeen marka maayarka magaalada Minneapolis oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxaan la kulmay hooyooyin Soomaaliyeed oo joogay gobolka Minnesota ka hor anigu intaanan imaanin dadka xalalka u tartamo qasab ma ahan inay gobolkaasi ku dhasheen ama u dhasheen gobol kale ay ka soo guuri karaan hadii gudoomiye gobol ama maayar ay u tartamayaan marka wuxuu hooyooyinka Soomaaliyeed baasaboorkooda ayay gacanta ku wataan iyagoo ka baqaya in ay dhibaateeyaan ciidamadan ICE marka sidaas darteed waxa uu yiri dadkan ganacsiyo ayay ka sameysteen gobolka Minnesota oo waliba horumar sameeyay waxa ay ka caruur way ku guursadeen caruur ayay ku dhaleen isla markaana caruurtoodii ayaa caruur ku dhashay sidaas darteed waxa ay ka baqayaan ayaga iyo familkooda in la kala wado oo qaarkood in la xiro oo la masaafuriyo ayuu ka wada marka waxa uu sheegay sidoo kale saraakiishan hadda ICE oo Trump uu soo diray magaalooyinkan iyaga naftooda xitaa ma oga waxa ay qabanayaan qaarkood ma yaqaanaan shaqada loo soo diray waxa uu yiri 80,000 oo Soomaali ah ayaa ku nool Minneapolis iyo waliba St. Paul waxaana dhamaantood ama intooda badan yihiin dad muwaadiniin Mareykan oo sharci leh iyo kuwa sidoo kalena si sharciya wadanka ku yimid oo ku soo galay kuwana waaba muwaadiniin marka waxa uu sheegay arintan uu sameeynayo madaxweynuhu waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid qalad ah waxa uu yiri ma jiraan dad Soomaali ah oo meel tuuran ama meel dhooban oo la yiri waa sharci la'aan soo qabta arintaasi gabi ahaanba ma jirto ayuu yiri marka muhiimaddu waxay tu yiri anaga inaan diiradda saarno sidii dadkeena aan wax ugu qaban lahayn sida darteed waxa uu sidoo kale sheegay in bartilmaameedsiga Soomaalida uu ku hayo Trump ay tahay mid sharci darro ah isla markaana waliba qatar ah dadkana dhaawacaysa wuxuu yiri ka Mareykan ahaan inagu waan qiimeynaa yiri ku dhaqanka sharciga iyo waliba dastuurka marka wuxuu yiri dadka dastuurka yaqaano ama bidix ahaaw ama midig ahaaw waxa uu ninkan ku dhaqmayo waxa uu yiri waa wax sharci darro ah isla markaana qatar ah waxyaabaha uu ka hadlayo sida darteed xitaa waxa la weydiiyay muxuu Minnesota iyo Soomaalida u bartilmaameedsanaya ma garan yiri ninkan maskaxdiisa wax ka guuxayo laakiin waxyaabaha uu sheegayo dhamaantoodba waa wax qatar ah oo aan wanaagsaneyn isagoo arrimahaasi ka hadlayayna
waxa uu yiri maayarka magaalada Minneapolis. I have talked to Somali mothers who have been in Minneapolis for much longer than I have been in Minneapolis, who are carrying around their passport just because they want to be safe. We are talking to people who have built businesses, started families, had children and grandchildren. They have contributed so deeply to the fabric of who we are, and they themselves are now concerned about their own families getting ripped apart. And so, yes, there is scattered activity that we have heard about. And here's the other thing. I don't think that a lot of these federal agents themselves know exactly what they're doing, given some of the directives that they've supposedly got. There's about 80,000 Somali people in America. Of those 80,000 Somali people, the vast majority, almost all, are legal, and the vast majority are American citizens. And so it's not like you can go to a place and suddenly herd up a bunch of Somali people that don't have documentation. They've got documentation, they're legal, they're Americans. We should be treating them like human beings, like you would treat any American. So I don't pretend to know the machinations of what goes on in a guy's head. The focus need not be on whatever comes out of his mouth, yes. Yeah, next. Is it dangerous? Of course. Is it hurtful? Absolutely. The focus needs to be on who we are as a people and what we value as Americans. As Americans, we value the rule of law. As Americans, we value the Constitution. As Americans, we value fairness. And here's the thing, for those constitutional scholars out there, whether you're on the left side of things or the right side of things, you should be losing it right now. Yes. Because this is completely and blatantly illegal and unconstitutional what the guy's talking about. ugu dambeyntii waxda USCIS ayaa maanta waxay soo saartay qoraal dadka kaarka shaqada haysta. waxay waxda USCIS ay leedahay maadaama baaritaanka aan kordhinayno dadka sharci darrada ah ee Mareykanka ka shaqeynaya waxa la yareeyay muddadii kaarka shaqada uu shaqeyn lahaa. kaarka shaqada Employment Authorization Document EAD ayaa loo soo gaabiyaa. markii hore waxa uu ahaan jiray 2 sano. madaxweyne Biden madaxweynihii hore ayaa waxa uu ka dhigay 5 sano. hadda waxa ay leeyihiin maamulkan Trump waxaan ka dhigaynaa 18 bilood amaba waxaan ka dhigaynaa 1 sano iyo bar. waxaana arrintaasi u yeelana ay yiraahdeen waxaan doonaynaa in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo qofka marka uu ka dhaco kaarka shaqada. markuu qofka kaarka shaqada ka dhaco Mareykanka ma shaqeyn karo. macnaheedu waxay leeyihiin qofkaas haddaan rabno waa qabanaynaa oo waa aan masaafurinaynaa. marka waxaan sidaa uga hortagno musuqmaasuqa isla markaana sidoo kalena in si sharci darro ah lagu shaqeysto aan uga hortagno. sidaas darteed ayaan u sameynaynaa. dadka ay saameynayso arrintan yihiin marka dadka ay saameynayso waxa ay yihiin dadka iyagu xareeyay kaarka shaqada ee wadankan soo galay ee ajnabiga ah oo qaxooti ahaan ku xareeyay, kuwa asylum ahaan oo magangelya doonka oo iyaguna xareeyay, dadka iyaguna la siiyay withholding of deportation or removal, dadka ku jira in wadanka laga saari karo oo removal ku jira. waxaa sidoo kale kamid ah dadka applicationkooda asylumka iyagana la yiri oo asylumkooda uu pending yahay oo weli aan go'aan laga gaarin, iyo kuwa sidoo kale ku jira withholding removal iyagana waa ay ku jiraan. kaarkooda shaqada waxaa laga dhigayaa 1 sano iyo bar. waxaa sidoo kale kamid ah dadka kale iyagu aliyanka ama ajnabiga ah oo iyaguna applicationkooda uu pending yahay under statute oo sharciga Immigration and Nationality Act 245 ka la yiraahdo. waxaa sidoo kale kamid ah dadka iyaguna in pending uu yahay applicationkooda oo ah laga joojiyay in wadanka laga masaafuriyo amaba laga cancelay removalka, kuwaasi oo ku jooga under sida Nicaragua dadka iyo Central America dadka ka yimid. waxaa sidoo kale ku jira dadka iyaguna baroolka ah oo as refugee dadka barool ahaan ku joogo. dadka iyaguna TPS la siiyay waa ay ku jiraan. dadka oo baroolka la siiyay iyaguna waa ay ku jiraan. waxaa sidoo kale ku jira dadka inta ay xareysteen TPS weli aan loo ogolaanin TPS tooda waa ay ku jiraan. marka waxaa la leeyahay dadkii xareeyay kaarka shaqada
wixii ka dambeeyay 22 bishii toddobaad ee July ee sanadkan 2025 application-kooda uu yahay pending oo weli aan la ogolaanin ama sidoo kalena in application-kooda xareeyay ayay arrintan saameynaysaa application kaarka shaqada I-765 ayaa la yiraahdaa marka dhammaanba dadkaasi ayay sameynaysaa sharcigii madaxweyne Trump uu saxiixay oo ahaa the big beautiful bill ayayna arrintan ku jirtay sida dowladda Trump ay leedahay oo sidaas darteed ayaa hadda lagu meelmarinaa sida madaxa immigrationka Joseph Edlow uu sheegay waxa ay saameynaysaa dadka kaarka shaqada inta ay xareeyeen weli aan helin oo pending uu yahay oo aan loo ogolaanin amaba sidoo kale kuwa buuxiyay kaarka shaqada wixii ka dambeeyay 22 bishii toddobaad ee July sanadkan 2025 marka waa la isku yimid kaarkii shaqada ee 5 sano ahaan jiray hadda 1 sano iyo bar oo kaliya ayaa laga dhigayaa ama 18 bilood waxayna sheegeen sababta u yeelan waxay tahay musuqmaasuq inay ka hortagaan iyo in baaritaan badan lagu sameeyo qofkan marka kaarka shaqada uu ka dhaco inta badanna dadka ajnabiga ah ayay qusaynaysaa dadka non citizenska ah oo muwaadiniinta Mareykanka aan ahayn qofku hadduu muwaadin noqdo uma baahno kaar shaqo sidaas darteed ayay noqonaysaa in hadda kaarkii shaqada ee work permit-ka la hakiyay arrimo musuqmaasuq iyo in qatarta Mareykanka ay dadkan qatar ku keeni karaan iyo sidoo kalena in ay jiraan dad remove oo wadanka in laga saaro garsoore uu go'aamiyay kuwaasi oo qatar u keeni kara Mareykanka dhammaanba waxyaabahaasi oo idil ayay baaritaan ku sameynayaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo